kadii naysha iyo uubatada. beri baa waxa jiray nayl yar oo la noolayd hooyadeed iyo aabbaheed. maalintii dambe ayaa ay duurka ku habowday iyadoo oo luntay oo ciyaysa baa waxa maqashay uubato oo kaynta dhexdeeda joogtay. uubatadii aad ayaa ay u dhegaysatay cida neesha, waana ay ku faraxday oo waxa ay tidhi maanta cunto bisil baa iigu timi kayntaydii. waa ay carartay oo u tagtay nayshii aad ayaa ay u argagaxday oo u baqday. laakiin waxa ay keentay fikrad oo fikir baa ay keentay ay uga baxsato uubatada. waxay tidhi, mudane uubato, waxaan doonayaa in aad ii fuliso codsigayga inta aanan dhimanin. kollayba gacanta ayaad igu haysaaye. waa maxay codsiga aad dalbanaysid iminka? fadlan ii garaac miusigah ama gitaarkan in yar aan yaro jaaso inta nolosha iiga dhiman ee aanad i cunin. uubatadii waa ay ka aqbashay oo waxa ay u garaacday miusigii. nayshii waa ay jaastay oo jaastay. uubatadii waxa ay garaacaysay miusigii. dabeeta waxaa maqlay aygii iyo ninkii waxarta lahaa oo eryaday uubatadii. uubatadii baa ku shallaysay, alla doqonsaniyaah, waxa aan maqlay codsiga naysha yar. nayshi yareed baa la qaaday oo loo geeyey arigii kale. fikirka fiican waxaan uga badbaadi karnaa khatar kasta.